بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وحلي يراده حسن إساق وحان دقين هاي فافي قاسة تولد يراده هربولة ما أنت لسد هربولة وحكتها ربشد دباتة إنه كانن ضد ير أو رجارس مركا دباتة وحاوي بروجكت وول بانك إلى هاي أيه وحاد عديني وصاب حي هربول وصاب حي وأنا لما مسوقي بروجكت وحانا هربول دباتة يا قيلدا يا رشبدا كريدا إنك اللي يراده جرحان فدي حفظك وول بانك أو كومبلينك وحل سارن marka shaqada wuxuu ku bixiyay sharci darre ah waa u geysanay diyoga la fariisanay waan wada hadal ma caljifashi shaqada waxaan dhahnay cancel dib loo noqonay shaqadan tan hala soo dhajiyo kadib waxaan dhahnay ninka u xaq leh ku qaato marka company harbol ay rabin oo 10 mashruuc oo harboleed horaan soo cunay oo aan xalaal ahayn shaqada soo u qabanay horaan hore iskuulka intii shaqo laga siiyay shaqadii iskuulka si aan rabnay u qabanay bay haddana siiyeen marka waxaa leenahay shalay iyo maanta iyo daraad waxaa noola isticmaalay askarta KDF shalay dad badan bay askarta meeshan ku garaacday maantana waxaa dhacday in special forces noola isticmaalo dadka odayaasha iyo qaryada in lagu tunto oo dad kontaragtaalay iskaga tuntaan oo xaqi boolada meel cilla lagu cuno ayaan dacwad ka nahay marka waxaan codsi u dareenaynaa dawladda Kenya ee nin walba oo dawladda u shaqeeyo faafi ay qusayso khaasatan dadka harbol laga soo doortay MCA-ga iyo MB-ga cod baan u dirayna oo leenahay dadkan baatada ee meeshan lagu dhuminayo dadka jeebka buuxa meeshan u dhuminayo waxaan leenahay hadday harbol u danqanayeen harbol ha soo fiiriyaan saddex beri waa ciidan noola isticmaalaya shalay u dambeeyay safaaro ay noola keenay maanta waxaan noo joogan ciidamada special forces oo ilmiri nooga imaadeen oo la rabo awood emergency in noola isticmaalo dadka bixinaya anaga dhaxdeena ma aha dad gaaris laga soo qortaa shaqadan qabanaya anaga dad dhaxdeena ay ahaan lahayd qaylidan ba ma jirteen ilaa dad harbol ah meesha ku jira dadka waxa la sameyn gaarsa laga soo qoran egeyn imaatana hadan hadalna jiifashi iyo diyogi wax weyn naga qaadi waayeen marka ninka la yiraahdo gurxana codsigan waa u geysanay warqad baan u geynay intaas codsigan u geynay wax uu naga wadi waayay marka diyoga naftiisa warka way la taala waxa su'aal anaga reer harbor aan weydiinana gaar ahaan xafiiska hay'adda la yiraahdo Wellbank ama dadka gaar ahaan madaxda faafi u xilsaaran oo laga soo doortay waxaan weydiinanaa oo su'aal ah hay'adda Wellbank la yiraahdo maxay iska leh xaquuqeeda sidaan garanayna ama aan ka warqabna reer faafi iyo reer Legdheera iyo reer Dhadhaab ma iska leh mase waxa iska leh dadka countiga gobolka Gaarsidan ba iska leh haday tahay waxa iska leh projectka ama hay'adda waxay taakuleen iyo saacideen iyo garab qabasho ay ku leedahay dadka shacabka reer faafi ama Dhadhaab oo kale ama mataqaana Legdheera oo kale annaga maxaan nahay meel oo faafi ka tirsan faafisanta ka tirsan gaar ahaan harbor la yiraahdo harbor annaga meesha la yiraahdo mashruuc aan lahayn oo ama aan ku lahayn Wellbank ama aan ku lahayn national ama aan ku lahayn county waxaad isticmaalhayaan dad gobolka goontiga Gaarsigan oo mataqaana oo qaabkay ku socdaan oo aanan fahmin xafiis walbana waan geeyay projectkan asaga ah hadda aan tultaaganahay oo labadan beri dhibaatadan saaidka ka socoto waa ceel soo baxay Wellbank ku ka soo baxay waa noola keenay dadkom yaan fariisano waan qorane inta laga qaada waraaqti markii Gaarsi la geeyaa gidid dadkii community-ga reer harbor ay qortaan oo dhan waa la bedelay waxa bedelay nin qandaraas leh ayaa qaatay dadkii wixii asag uu rabana uu ku darsaday projectkana qaabka asag uu rabo uu isticmaalay waxa su'aal kale ah meel walba oo la joogo waxa joogan nin company isticmaalo waan garanaynaa dadka kulli business ku wada jira company-yaashana waxay iska leeyihiin sharci wax la yiraahdo oo projectka markuu soo baxo qaab la wajhu leeyahay ma projectka asaga hadda aan tultaaganahay qofka company-laha qaatay wuxuu ku qaatay si xad gudub ah oo sharciga ma taqaana dawladda Kenya aan u garanayna aan waafaqsaneyn hay'adda Wellbank la yiraahdo gaar ahaan dadka xafiiska jooga faarax ninka la yiraahdo dhibaatada maanta reer harbor ay luqunta isku jirto ilaa 3 bari military uu korsaaran yahay waxa ka dambeeyay ninka gurxan la yiraahdo oo u xilsaaran khilaafaadka waan garanaynaa anaga dawladda min walba xafiiska uu joogo waan garanaynaa waxa su'aasha aan ku wadnaa dadka reer faafi laga soo doortay ama MCA ama MB ama gafana leh sidaas awgeeda dadka xafiiska Wellbank jooga wuxuu noo isticmaalayaa si dadka hatta ummadda reer Soomaalida ma taqaana fooraha joogta aan loo isticmaalay 3 bari baana korsaaran ciidan hadda saaka duhur waqtiina aan joogno maxaan maanayn 8 9 saac aan joogna
تدبس سعيدا كينيا متك قدام بين دحر كان يانا لو دولكana hadiyana haysa كينيا waxaan ka codsanaynaa dadka ama madaxda ama weel baan qorada la yiraahdo meesha la yiraahdo Harbor week 7 days waxaan ugu haystaa wax shariicada islaamka Kenya ka baxsan ama inaan Kenyaan ha noo qarto ha narto gaari ha noo keento ama Kenyaanimaha noola ogolaado intaas aan korkaan ku gaabsanayna Maxmed Cali way dib iyo dhibaato meesha way nagu hasaa 18 sano meeshan fadhinay dib baan ku qabnay rafaad baan ku qabnay macduurkaan qabnaa amboorkaan qabnaa waan dhibaataysanahay adduunyaa ebel qabnay adduunyada gama iska xumaatay way iska dheef yareysay shirin ka soo uro dawlad anu ma aragno waxba ninna ma siiyo macduur baan iskana buuladan hadaa dhaxqaadiin waxa macduur oo fadha hadaa aragtiin waa u yaabaysiin wax nagu og ma laho halkan baldooska xun baan yaan iska darsanayna baldoosku iska halaabay anagu waxa nalaga xukumay magaalada Gaaris dadka joogo wax nala warsan ma jirto wax nala weydin ma jirto bantooy baa nala kordhigay saddex awaa bantooyna saarnay anagu maxastaan aan damaqayna maashi un faaro tubnaa marka ay saato dawlad hadaa tihiin ma qabno anu gurub noolama qoro wasay noolama qoro duqay noolama qoro shan ma helo anu wax ilaahay leeyahay nala siima jirto dad kale baa wax nagu qaata marka ay saato baldooskayna taan iska gadanaya marka ay saato dawladda daatiina amka codka anaga duuhasiin afka hana daalinina wax diina loo galaynin saasa salaam alaykum alaykum salaam madhuwo salaad baa leedaha wadanka anaga iska leh baldooska anaga iska leh moora ari qariyo lagu ma qaato wax lagu ma qaadanay baldoosna uu ka qoday baldooska anaga aan lahayn dad anaga aana mashruuca waxba aana ka helaynin inuu maalin walba qaato 15 sanad baa ani bogtay oo wiilkay u silsilad ku xirna mashruuc dawlad ka imaado ma helo wax ilaahay leeyahay arab aan saarna ma helo dhulkaayna waa nagala qaybsado waa nagala qaatay waa annagoo joognaa la qaatay Harbol raalli kuma nahno inuu dad kale intuu qoto oo qandalaas ku qaato arayna la qaato ma ogolo waa saayeen nabadgelyo warahmatullaahi wabarakaatu magacayga waa Umar Geedi Jaalle Harbor baan ka tan waa Zaydar Harbor baan ka tirsaanahay Harbor dib baan hayaa annagana ma wadno waan ugu wadaa maan la saddex sidii odayaasha hore sheegeen wayna saaran tahay dawlad baan oo la adeegsanayaa xaq aan leenahay baa la duusin hayaa wax anag aan xaq u leen baan ku dhumahaynaa dawladana saan arki raali bay ka noqotay maxaa yeelay mar haddaan dhibkayna dawlad u sheeganay oo dhiyo weyn yahay jiifka meesha naga ahaan u sheeganay MC aan u sheeganay wax walba u sheeganay wax way nooga qaban laakiin marka saacadan dawlad aan noo umaanin ma jirto annagana saaka u dambeysay mudaharaad baan qaadnay wadankaan meesha aan 30 sano aan deganeen baan yaan ku dhimanayna xaq baan u leenahay wixii soo baxo mashruuc baan ugu dilayaa reer Gaaris baan yaan arintan ugu sameynaysaa oo afar nin oo odayaasha hore ay sheegeen rillana kamanhin maxaa soo har boholka baldooska asaga rilla kamanhin haddii Harbor gacantii iyo waazeyd iyo dadkan aan la soo galaynin waan ugu dulmayaa inay noqtaan ku faraxsanahay haddii kale ahayn xaq aan leenahay dawlad haday dawlad tahay oo wax eedoon qaban meeshan dhiyo aan leenahay jiif aan leenahay MB aan leenahay dan ha noola qabto haday dawladda noo qabanaynin waa see odayaasha hore sheegeen reer Soomaali hanugula biiro oo Kenya nimanina nagala raro haddii kale ahayn gacanta ha noo soo geliso nabadgelyada saaka u dambeysay waan u fadhinay waan doonay nabad odayaasha hadda nabdulma hayaan baan nabad ka doonay wayna qadarin waayeen waan doonay wayna qadarin waayeen saaka u dambeysay salaada subax markaan tukanay dantooda u fariisanay inaan wada hadalnaan ku talagalnay meeshii ay aan ka sugeeyne waxa noo umaatay askar ay noo soo adeegsan oo xoolo ay siiyeen xoolahan wala gumaadahaya xoolii anag aan lahayn oo masaakiinta lahayd oo sida odayaasha hore sheegeen sariirta loo wada saaran yahay habarnaaslada fadhido yaa nagu adeegsanaya oo nagu dhuminaya rillana kamanhin baldooskan hadda saacadan laga bilaabo haddii oo gacantayna waraaqta aan lagu soo celinaynin rilla kamanhin ha noqoto MB-ga oo hadda usugana noo soo gale warka waan gaarsiinay hadda ilaa saacadan warka ma hayno hadduu MB dalka oo aan ka dooran uu yahay ciidacada ha gaarsiiso waan dhumahaynaa dadkaadii dawlad baan wala dhuminhayaa rag naga xoog badan oo naga xoolo badan baan dhuminhayaa rag naga xoog badan oo xoolan noogu faanaya xooli xaq aan noogu faanaya naga yaa nagu dhuminhayaa reer Harbor dadweynaha uu ku soo cabtay MB hadaa tahay ciidacadaha nagala gaarsiiyo dan ha noo soo qabto haddii MB meesha laga soo horto uu yahay
saddex bari had ka dambe haddii imbiga uu dadkan kala soo gaari waayo dowladda ayada waxay muxuu ah dhiyooga u koreeyo iyo jiifka u hooseeyo waxay la shir noqdeen nimankan muxuu ah xoolahan ugu maadahayaan waan ku darsanahay saaka meeshan hadda saacadda imbi waxa emergency baana saaran oo ciidan baana kor saaran marka anaga waxaan u ekaana waxaan madax lahayn oo jiif aan lahayn oo dowladda aan ka mid nahayn imbiga waxaan ka codsanaynaa igin had imbi baan noo soo haray dhiyo waan ka samarnay jiif waan ka samarnay oo loqol bay noqdeen waxaan ka codsanaynaa imbiga inuu degdeg nagu soo gaar meesha dan nooga qabno anaga dadka hadda cusub ma rabnaa inuu meesha uu ka shaqeeyo komitii cusub ma qaba yaan qabsanay waa ka waan u geeyni wax naga qaataan waayeen oo waan u geeyni ilaa waan geeyni waa ka waraqay waa hayna wax naga qaadama ma laha waraqay waa hayna waa haysana waa ka dhiyoogi ilaa jiifashi waan u geeyni bas hadii nimankan walaan mo ana nama fiirin hayaan waa ka على عضو شبين باليه دولة محن أشيغنايا دولة محن أشيغنايا سدح بري أفر بري أنا مرتي تضوات كنبو أنا مرتي مجلس الكرسارلين أنا مرتي صومال هاي أنا كينيا هاي وأنا كلا قررنا هاي محن أشيغنايا دولة عن شرع عن مرتي عن خضة ودونة إنبيج محن مرتي عن وشيها إنبيج محن وشيها مرتي أفر بري أسكرنا كرسارن تاي ساك لو ويل بساك فكذين المهد أنا مغن المهد أو دولة كعرن أرجعين لما كان الحركة بمرتي يا بولد عاد أوجد بمرتي كحشبة يا مرتي يا مد بمركز سوقلي قري أردن بوحكها لواي saddex wiil baa saaka yaa naga carreen maxay galeen maartay quriga galeen ilmihi saaka hadda la keen ayako on maartay qaarkood dhaceen saddex wiil baa saaka intay quriga galeen carreen ya hadda la keen ayako sakar had biyo lagu guray oo ka had daftina ka bixi doonto ay kala mooyee ku xushmaa maxaan ka barhinaa meeshaydo adaan shay ku dooranay oo ku doodnay inay meeshaydo martay olkan na kor saaran inaad cawada naga dhixin cawada inaad naga dhixin oo martay askata anaga qaado horta nolosh kale ilaahay baan noo haya irsaqa kale ilaahay baan noo haya horta olkan ilma argixin ku dhacay rag iyo bilcaan ba martay argixin ku dhacay anaka naftaan barigila xalana barigil habeen hore barigil inaad martay aad naga soo gaarto caawa Yuusuf Caafi maxaa aye waxaan anaga u baahanahay meeshan inaanan wartan inaanan laga qoodin reer bool hadaan meeshan waxaan reer bool ahayn inuu soo gala ma rabna anaga wadankan intaasoo sane 15 sano ma waan ku jirnay meeshan waxa anaga na soo fiiriyana waa waayna gadaal loo soo fiiriyo aan sugo bari meeshan loo qaday waxaan ka ahayn oo gadaashan loo soo fiiriyo anaga ma aan arkin ma maqleysa marka anaga imbiga waxaan ka cod saaranay meeshan in naloo hagaajiyo anaga reer bool u lahaano wadanka wax kale oo na soo gala inuu jirin dadka in laga saageeyo imbiga وأنا أمبيجا محاش أمبيجا كدورنا نكون هنا أنا وماشي نقول قاعد نقول نقالة وإلهي بعد نقالة إسكاله بالآدم ماله أمبيجا صالح يعقوب أمبيجا صالح يعقوب إنه ماشي أنا نقول قاعد ومغلها سا بالدوس كاينا وعدينا إلا قضاء بالدوس كاينا وعدينا أنا كدولة دكتور مجرنا أنت عرفت ماشي عارفني أنت أساسا عارفني واحد دولة نوقع مع دوينا عارف كنوقع نكتاوي دولة النوقع صباح أنت أبغى كسبنا هذا واحد نكشي وماشي هذا أنا لقى قاعدنا بالدوسكي بالدوسكي اللي لقى أنا قاعد لها إنه وحكي صباح أنا قاعد لها أضيع دا كجرت عروق يلا دافع يلا عكس واحد قالوا أرهب أنا أكو قبل ما جرت يعني لو قدون سنة أسكر وين اللانجر أفر كور بينه بعد أسكر أفر كور ويران ها هذا إنه كور صارن تاي وأنا ودي له وأود كايل أنا ود كايل وبعود من هنا وأنا عمر صلاة وأنا كود بعته وين حاسته وبنتو إنها صارت وبلدوس كاين نقول الدلها يو أدو إن بجاي ماشي وكدو يوصينا على ما جايلين صالح يعقوب إن بجاي هدو يهو ماشان أو أنك عطسنا بنتو يبان صارت الماء سدح أنا قبل ما أنت نقف فيجين حبدا نقول لك كذا كلي ما حد يرى نسوا عاود نسوا عاود بلدوس كان أنو كاسكال رجارس ما جنيه نقدرين أنو كاسكال
sideed iyo toban sana fadhina meeshan nah weli wax meeshan maana ka siinin in bigaay saalax yaqoob hadaa taho baldooskan nimanahan meel laga saar baldooskan noo qatara ka cirka uu soo onko tiyaay na soo hoobde hadaa in bigaay to reegaaris meel naga saar agta naga saar de amalangaag waa arka sabaxan oo xaar oo dhamcaan oo adduun oo shoodo dhaxtaalana waata waad arkaysaa naga haraka naga soo gaar meeshan waa dhamaan haynaa anug reegaaris wayna dilayaan baloogyahooda intay bogoon bay egana laqayaan anug ha naqsa naga soo gaar meeshan iyuna dilin yaana la dilin naga soo gaar hadaa wax noo tara in bigayn hadaa taho oo aan ka codsanay ha badbaado weyn amaan weyn hanogula dadaalo anug meeshayna beer haday lo gasho waa la daanyeeyaa ceelkaayna baa egan anug la soo galay